waxaan ognahay Allahu naxariiste Sheekh Maxamed Xasan Aadam oo kamid ahaa culimada diinka magaalada Columbus imaamkii masaajidka Abu Hurayra ahaa in la waayay 22 bishii December 24 isla bishaas meydkiisii la helay isla markaana 30 isla bishaas lagu aasay magaalada Columbus haddaba waxa socday baaritaanka iyo dabagalka dadkii ku lug lahaa dilka sheekha Allah u naxariisto maanta booliska magaalada Columbus ayaa hadlay waxaana ay ka warbixiyeen baaritaankooda halka uu marayo iyo ilaa ay hadda waxyaabaha ay heleen sidoo kalena culimada diinku ma aysan ka qoosan inay raadiyaan dabagalka dadkii ka dambeeyay dilkii sheekha waxaan rabaa inaan arrimahaasi ka wareysto Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah afayeenka dalada masaajida magaalada Columbus Sheekh Horseed soo dhawow marka hore bal waxaad warbixin naga siisaa halka uu marayo baaritaanka waxaan ognahay sidoo kale guddiga inaad ku jirto loo xil saaray arrimaha dilka sheekha yaad la kulanteen ilaa ay haddana maxaa idin qabsoomay baaritaanka dadka ka dambeeyay dilkii sheekha lagu hayay bismillah waa dhawahay walaal cilmi waare waana salaamayaa dadweynaha kugu taxan waana kaaga mahadcelin howlaha qiimkeed umada waxayso saad la socoto wali waxaan wadnaa baaritaankii ama dabagalkii waana naga go'an tahay runtii ka ummad ahaan khaasatan ka masaajido iyo ducaad ahaan in aan dhiiga shaakha insha Allah taala meesha nala gaadhabaan meel saarno sidii way baaritaanadu u socdeen khamiistii hadda la soo dhaafay waxaan kulan la yeelanay oo na dalbaday duqa magaalada oo ay weheliyaan laamaha amniga mas'uuliyiinta iyo hawlwadeennada ugu sareeya waxaa kaloo kulanka goobjoog ka ahaa haweeney dhawaan loo doortay in bilayska magaalada Columbus ay maaragtay mas'uul u noqoto waxay naga dhageysteen warbixinadeennii waxaanan runtii u sheegnay in aanan aad ugu qanacsanayn qaabka ay wax u wadaan oo dardargelintii aan ka rabnay aanan weli arag runtii uu ka garaabay wuxuuna noo sheegay in ajendaha ama qodobka ugu horeeya ugu weyn ee miiska duqa magaalada iyo laamaha amnigaba saaran waa siduu noo sheegay uu yahay qadiyada Sheekh Maxamed Xasan Allah naxariista in meel la saaro wuxuu noo sheegay in resource ama miisaaniyad cusub ay u qabanayaan oo khubaro xeel dheerayaal oo horle ay u qabanayaan in nimanka la soo qabto wuxuu hadalka ku wareejiyay haweeneydii bilayska u sareysay oo meesha fadhiday inay warbixin siiso waxaan isugu jirnaa anagu marka guddigii baarida sheekha loo xil saaray iyo mas'uuliyiintii ummadda Soomaaliyeed qaar laga soo xulay iyo qoyskii ama ehelkii hoose ee sheekha caruurtiisa iyo saasoo kale waxay noo sheegtay laba shay in ilaa hadda ay cadeeyeen mid waxay tahay sheekha inaan loo dilin arrimo ku lug leh diintiisa ama islaamnimadiisa oo waxa la islamophobia la yiraahdo dareenkan ka dhanka dadka muslimiinta taas waan cadeynay waana soo afjarnay dhahen waxaan kaloo soo afjarnay bay yiraahdeen baaritaan dheer kadib inaan sheekha loo beegsan cunsurinimo oo xagga midabkiisa ama jinsiyadda ama qowmiyadda uu ka soo jeedo labadaas waan soo afjarnay waxay markaa hadda ku zoom gareeyeen oo kaamirada ku foorariyeen waxa saddexaad iman kara intaasay noo sheegeen waxay kaloo inoo sheegeen in rajo way ka qabaan in runtii arrintan ay maaragtay ka salgaari doonaan ninka maaragtay baaraha khaaska ama detective-ka isaguna runtii wuxuu noo sheegay in maaragtay ay hawshu si fiican u socoto maanta maanta waxaa jiray shir jaraa'id oo si wada jir ah ay u qabteen lead investigator-ka ama ninka hogaaminaya baaritaanka dilkii sheekhan ciidamada baaraya qoyskiisii iyo adinkoo culamaa u diinkii ah shirkaasi muxuu ku saabsanaa lead investigator-kana maxay ahaayeen waxyaabaha uu soo bandhigay oo uu sheegay oo ilaa hadda cadeymaha hordhaca ah oo ay hayaan wasaad sheegtay salaadii jumca ka hor ya masaajidka Ibn Taymiyyah waxaa ku qabanay war saxaafadeed uu ka soo qayb galay horjoogihii dambi baarayaasha iyo qolada la yiraahdo crime stopperska oo inta badan iyagu u dhaxeeya laamaha amniga ama bilayska iyo dadka waa qolada mar walba
tibka ama lacagta abaalmarinta ah ee qofkii xog keena ku wareejiya maadaama dadku inta badan ay xasaasiyad ka qabaan inay toos ula xiriiraan biliiska crime stoppers baa la yidhaha waxaa kaloo joogay lawyerkii loo qabtay sheekhay qoyska matalayay iyo dalladii masaajida iyo qoyskii intaba waa joogeen shirka iyo hay-adda care mas-uuliyiintooda ka hadlay meesha shirku laba waji buu lahaa mid waxay ahayd in dadka loo sheego oo la yidhaahdo lacagta hadda aanu siinayno waa $20,000 qofkii xog tilmaamaysa hawshan cid ku lug lahayd noo keena midda kale gaadhigii sheekhu iska lahaa ayaa waxay noo sheegeen in ay kaamirada ku hayaan isaga oo uu wado qof markaas glavis cadcad gacmaha ku sitay qaarka sarena hood ama maaragtay marada la isaga dado markaa midabkeedu gaduud yahay uu sheegay qofku xitaa inuu madow yahay siyaabo kalena maqalay in marka intaa qofkii xog ku soo dari kara ay caddeeyeen in ay lacagtaas ay ku wareejinayaan adigu intaasa ugu muhiimsaneed iyo in maaragtay maamul ahaan Columbus ay ka go'an tahay laamaha amnigu in ay soo afjaraan waxaa marka xusid mudan runtii in anigu shakhsiyan anoo kamida guddiga loo xilsaaray hawshaas afayeen oo dalada sheekhana saaxiib hoose la ahaa hawshan u fara dhuudhuuban in runtii aan dadka Soomaaliyeed ugu bishaaraynayo in calaamadaha aan haynaa ay waaweyn yihiin runtiina aan ku rajaweynahay daalimiinta in la soo qabto sida ugu dhaqsaha badan insha Allah sheekh dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin maalin kasta ayaa dad la dili jiray sheekhana kama duwana dadkii la dili jiray mana laga yaabo in la helo xogta ama la soo qabto dadkii ka dambeeyay dadkaasi maxaad leedahay arintaasi wali aaminsan oo dhahayo sheekhan ma u maleynaya in la heli doono dadkii ka dambeeyay dalkiisa wallahi ilmi warawal si daacada bulshada Soomaaliyeed kolkii uu wada hadasho khaladaad waxa jira inaga Soomaali ahaan xageena oo loo baahan yahay inaan qaadano waxa kamid ah way jiraan wiilal fara badan oo Soomaaliyeed oo laga dilay oo aniga waliba dadkii ugu horeeyay meedkooda dul istaagay ama meedhay ama godka galiyay baan kamid ahaa waa sax laakiin laba arin baa jirta wiilashu inta badan waxa ay nooga dhinteen waxay ahayd qaarkood runtii waxay gacanta kula jireen anoo aad u ixtiraamay shucuurta waalidiintood waxyaabo markaa bulshadu ay ogeed oo maandooriya asaas oo kale qaar waxaa jira wiilal fiican ahaa laakiin la socday niman markaa rag kale ay isu dhaarsanayeen isxabadayeen ceebta kale in haysato waxay tahay laamaha amniguna hadda runtii ay ogaadeen bulshada Soomaaliyeedna loo baahan yahay inay garwaaqsato ka korto in qofka dhalinyarada anagu aan wadanka ka saarayno oo dhoofinayno oo dad badan hadda loo yahay qarsoonayn ay jiraan wadankii loo gudbiyay kiisaskaas iyo midan marka shaqo isku male midan waa qof mas'uul ahaa sheekh ahaa hantiila ahaa reer lahaa oo la afduubay waxyaabo runtii aan fahmi lahayn ay afduubeen 3 isha la haystay kadibna meydkiisa meel lagu soo tuuray weeyaan marka arintaas xasaasiyada keenaysa oo runtii ka duwaysa waxyaabihii hore ee la soo maray laakiin waa runtii qof walba geeridu way saameynaysaa qof walba qoys buu ka dhashay laakiin sheekhu arintiisu way ka duwaneed ma ahayn qof maandooriye ama meel la oran karo khalad uu joogay waana qof la afduubay oo 3 isha la haystay oo idaacadaha dhan ay ka hadleen oo mudaharaadyo loo sameeyay oo culimadii ugu waaweyned North America ahaa dalada la yiraahdo 36 masaajid maamushana hadda loo doortay inuu noqdo xog haynteeda marka Minnesota hadda ka soo noqday xitaa dadku ay weydiinayeen taasa ka duwaysan leeyahay ugu dambeyntii sheekh muuqaalkan lead investigator kama ninka hogaaminaya baaritaanka dilka sheekha uu soo bandhigay oo ah gaarigiisa inuu qof kale waday qoyskiisana ay u xaqiijiyeen qofka gaarigaas waday inuusan Allahu naxariistay sheekhi ahayn gacan intee la eg ayuu ka geysan karaa muuqaalkaasina waan hayaa dadkan waan la wadaagi doonaa gacan intee la eg ayuu ka geysan karaa ayaa isleedahay baaritaanka lagu hayo dadkii ka dambeeyay dalka sheekha wallahi waxaan isleeyahay muuqaalkaasi wuxuu ka mid yahay waxyaabo waxaan aaminsanahay inta ka waaweyn inay lead investigators ku ay hayaan oo saan la socono runtii baaritaanada socda dad fara badan oo xitaa laamaha FBI ay u timid baan garanaynaa kaamirooyinkii dhan bay wada qaateen intana waa iska hordhac laakiin runtii waxaan aaminsanahay marka la eego meesha sheekh meedkiisa aan ka helay iyo goobaha u dhow guriyo iyo goobo ganacsi kulli kaamirooyinkooda way kala baxeen videoga waana ishay ku hayaan marka anaga runtii waxay noo sheegeen waxyaabo badan oo muujinaya in la soo afjari doono muuqaalkan hadda aan ka hadlayno iyo kuwa kale oo isleeyahay way soo socdeenna waxay qayb ka yihiin evidence ka lahayo
waxaad leedahay sheekh muuqaalkan hadda waa 14 second ma badna waxaad aad leedahay boolisku waxaan u malaynayaa in muuqaalo intan ka badan ay hayaan oo intan waa qayb yar oo ay dadka la wadaagayeen waan aaminsanahay walow aanay nagu odhan laakiin waan aaminsanahay waxaanan u aaminsanahay runtii gaadhigu meeshuu ka baxay iyo waddadu qaaday markii u dambaysay sheekha la arkay wax la garanayo waxaan isleeyahay kaamirooyinka laamiyada ku xiran guryaha ku xiran oo dee aan isleeyahay beritola ugu dambaysa waayo waxaynu ognahay kaamirooyinka 25 cisho kadibba way ismasaxaan inay wada hayaan marka oo weli baaritaanku uu socdo waxaan aaminsanahay marka in muuqaalo intaa ka badan ay hayaan iyo xog intaa ka badan waa rajada annagu aan qabno wey aad iyo aad u mahadsan tahay waxa uu ahaa sheekh horseed cayni nuux oo afayeenka dalladda masaajidda magaalada Columbus isla markaana ka mid ah guddiga loo xil saaray baaritaanka dadkii ka dambeeyay sheekhaasi waxaan ka wareysanayay waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay baaritaankii dilka sheekha wixii kale ee soo kordhana haddii alla idmo waan idila wadaagi doonaa welina boolisku waxay codsanayaan nambaradan idiin muuqda inay kala soo xiriiraan qof kasta oo haya xog ku aadan dilkii Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Xasan Aadam asxaabtayda aad u mahadsantihiin intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leeyahay sida iyo